xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Sheekh Cismaan Saciid ayaa aalada fogaan aragga ee Zoom-ka waxa uu kaga qayb galay shir ay iskugu yimaadeen xeer ilaaliyaasha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Saleebaan Maxamed Maxamuud. shirkan oo diiradda lagu saarayay xoojinta wada shaqeynta ka dhaxaysa xafiisyada xeer ilaalinta iyo waliba waxyaabihii u qabsoomay sanadkii tagay ayaa waxaa shir gudoominayay Saleebaan Maxamed Maxamuud xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. shirka ayaa inta uu socday waxaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday hay'adaha taageera bahda garsoorka gaar ahaan xafiisyada xeer ilaalinta in si wada jir ay uga qayb qaataan horumarinta xafiisyada kala duwan ee xeer ilaalinta isla markaasina loo baahan yahay in sare loo qaado tayada xafiisyadaasi. shirka oo sidoo kale looga hadlay qodobo muhiim ah ayaa markii uu soo gabagabay waxa warbaahinta la hadlay Maxamed Sheekh Cismaan Saciid xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland wuxuuna faahfaahiyay qodobadii muhiimka ahaa ee lagu falanqeeyay shirkani. shir soo yimid xeer ilaaliyaasha guud ee dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. shirkaas oo ku dhacay aalada fogaan aragga ee Zoom-ka. shirkaas waxaa looga hadlayay xoojinta wada shaqeynta xafiisyada xeer ilaalinta heer qaran iyo heer state-ba. waxaa kaloo looga hadlayay maadaama uu xeer ilaaliyihii guud ee qaranka uu shir gudoominayo inuu xeer ilaaliyuhu maadaama uu xafiisku joogo 2 sano in uu warbixin naga siiyo waxyaabihii qabsoomay markii laga fiiriyo xagga wada shaqeynta iyo taageeridda xafiisyada xeer ilaalinta guud ee dowlad goboleedyada. xeer ilaaliyuhu warbixin dheer buu na siiyey wuxuuna warbixintiisii ku sheegay in 2 sano uu joogay cudurka safarka COVID-19 uu jiray oo tababaradii iyo wixii dhan ay istaageen. saa darteed uu rajeynayo sanadka cusub in tababarada iyo taageeridda xafiisyada xeer ilaalinta dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya ay wax weyn laga qabto. hay'adaha caalamiga ee taageera bahda cadaaladda ay wax weyn ka qabtaan maxaa la yiraahdaa xagga qalabeynta tababarada dhinac kasta. waxaa kaloo ka wada hadalnay 2 shir oo muhiim ah oo fooda nagu soo hayo oo ah shirkii sanadlaha ahaa ee garsoorka dalka iyo shirka sanadlaha ah ee xafiisyada xeer ilaalintu labadoodana dhacay bisha soo socota Janaayo. Khadar Iimaan Dhaqane warbaahinta qaranka Kismaayo.